بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ugu horeyn ciddii soo qabanqaabisay iyo dadweynahan xaadirayba waa u mahad celinayaa. kadibna kelmadeennu waxay ku saabsanaan doontaa insha allahu tacaala bayna atasbiixi waalrida, xidhiidhka ka dhexeeya in la tasbiixsado. tasbiixu subxaana allah waa ilaahayo waxaan u cuntamin ama u qalmin laga dheereeyo, waa tansiih. labada erayo subxaana allah walxamdu lilah. alxamdu lilaahina waa ilaahayo wuxuu ku sifoobe kamaal iyo wanaaga lagu ammaano. subxaana allahina waa ilaahay waxaan u cuntamin ama u qalmin oo laga nasaha mase laga dheereeyo. dunida aynu ku nool lahay ilaahay wuxuu inoo tilmaamay in laynoo keenay in layna itixaamo. kullu nafsin daa'iqat lmowt wanabluukum bishari waalkhayri fitna wailayna turjacuun. dadka qof waliba geerida waa dhadhaminayaabaa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. inta geerida ka horaysana nabluukum bishari waalkhayr, sharka iyo khayrka labadaba waynu ku itixaamaynaa baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala. haddaad nimco heshana waa imtixaan, hadday dhibi ku soo gaadhana waa imtixaan. labaduba waa imtixaan. mid waa imtixaano waxaa la eegayaa inaad kibirtoo qooqdid ama inaad tawaaducdid oo ilaahay u mahadnaqdid oo shukri la timaadid. waa markaad wax hesho, nabad iyo caafimaad ka dharagtid, xoole heshid. cagsigeeduna oo imtixaano waxaa la eegayaa inaad sabirtid, adkaysatid. ilaahay subxaana wa tacaala qadaa'uhu wa qadaruh inaad raalli ka noqon kartid. qur-aankana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inooga warramayaa ambiyo tiro badan oo labadaba lagu itixaamay, iyo dad saalixiina. dad xoolo iyo madaxnimo lagu itixaamay sida nebi sulaymaan, nebi daawuud, dulqarnayn, taaluut. waa madax muslima oo soo martay caalamulislaami ama dunidii muslimkaee soo jirtay, dunidana ka teliyey meelo badanoo ka mid ah oo la itixaamay. nimcana lagu itixaamay. kuwo kale oo dhib lagu itixaamayna ilaahay uu ka warramaya qur-aanka. qaar la dilay, fariiqan taqtuluun. qaar la xabsiyey, nebi yuusuf. qaar xanuun lagu itixaamay, nebi ayuub. basharka waxa dhib soo martoo dhan iyo waxa barwaaqo maraba ilaahay ambiyu tusaale uga dhigay. haddaba dhibaatooyinka wakhtigay jiraan dadku in badan wuu warwaraa, cidhiidhina wuu dareemaa. maanta dunida aynu ku nool lahay dacal walba muslim baa la dilayaa. waxa raadiyow iyo tv ka warramaya waa muslim qaxaya iyo muslim la dilayo. cidda dareen islaamiyay ku jirtaa markaa ama ka damqanaya dadka muslimiinta iyo dhibta gaadhaysa waa warwaraya. waxaynu ka warramaynaa markaasi warwarkaa dawadiisa. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo baxay magaalada u dhashay ee maka ah. dabeetana dadkiisii baa ka hor yimi, dagaal kala hor yimi, dhibaatayn kale kala hor yimi, aflagaadayn iyo ceebayn kala hor yimi. isagoo rasuul ilaahay soo diraya oo leh ilaahay keligii caabuda ayay kala hor yimaadeen inay idhahdaan beenaalaad tahay, saaxir baad tahay, kadaab baad tahay. waxaa qur-aanku uu ka warramayo oo dhan. qofka bini aadamka ee dad sama u sheegaya wanaag u wada ee haddana dadkii wanaagga uu sheegaya ay ku leeyihiin beenaalaad tahay ama kadaab baad tahay ama saaxir baad tahay ama waad waalantay. yaa ayuha aladii waxay tilmaamayeen warkan kitaabka lagu soo dejiyeyo innaka la majnuunun bay leeyihin. waabaad waalan tahay, waxbaa kuu dhiman. cidhiidhi buu nebigu ka dareemay markaasi calayhi salaatu wasalaam. saxaabadiisa hortiisa lagu toorjargaraynayo o lagu leynayo aan waxba u tari karaynin. waxaa hortiisa ku dhimanayay magaaladu joogay qoysas dhan oo la toorjargareeyo sida reer aalu yaasir oo kale. wiil baa ka badbaaday
عمار بن ياسر با كبد بادي odaygii islaantii wixiiba torjarka lagu laayay qaar kale waa la cadaabay sidii muadinkii nabiga kaleey salaatu wasalaam Bilal al-Habashi oo kala dhagxanta la saaro Allah laha waxa soo dhib oo soo mareysay haddana waxa ka sii dhib badan marka dadka qofka kuugu xiga uu noqdo ka kuugu adag nabi maxamed adeerkii ruma markuu quraysh ka qusto dadka kale si la hadal carabtaas xajka timaadaba ka timaadaba meelaha timaada la hadal adeerkii ba daba socdo le kan ana adeer waa beenaale waxba ka dhageysanina waa nin waalan waa Abu Lahab waa adeerkii ayaa bihi walaaliin oo la waa wiilkayagii waana idinka og waxaad oran lahayd haddii nin uu ku yimaado adeerkiina daba socdo oo adeerkii ku leeyahay wuxuu sheegaya waxba kama jiraan ilaahay subhanahu wa ta'ala markaa wuxuu soo dajiyay quraan ka waramaya laabtiisu siday u caafimaad lahayd diiqan iyo cidhiidhiga tan iyo dhibtan qofka muslimka ah haysta si uga bixi kari lahaa waa dawaa yustashfa waa dawa lagu caafimaado ama tiriyaaq sunta lagaga bogsado ilaahay wuxuu leeyahay fi suurati al-hijr ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم وأغنى هيبا إلهي لي أنك يضيق صدرك لابتو إليك عريرتوميسو وحيكو هضليان درادد هذا إلهي رسول كيسية بشر كبا إلهي كادورتي أفضل وحي بني آدم با آدم دالي وقفض بدن إن هدنا لغو عاية ولغو تلمامو ودوالنتهي أما وحبا قولي من أما وصاحر أما وكذاب إلهي وحلي وأغنهين لابتكو عريري يوميس ووحي كو هدليان لابتا هذا عريري أتكدريمي دونتو إما حد وكوه فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين بإلهي إلهي التصبيح سو أديكو كله يا مسا كمريا ما هد نقيس يا حمدقيس كلمتان سبحان الله وبحمده أديكو له سمع بإلهي وكن من الساجدين كوا السجود ينا كم النغو لبدا شيء إلهي وتلمامي وحويا ولبدا لابطع عافمادية وحكستو عريري ابن آدم كصومرة وكجبك سدو هدي ومحي ردنا يوسمين إياه هدو يدتك صلاة ردمية تصبيح ردمين إياه قرآن بدن با إلهي سودة جيو نبقى عريري هايستو كتلمامي قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين كل هذه الآيات الله وحكا والرمية عديدك نبيك هيستي عليه الصلاة والسلام عديدك نبيك هيستي iyo ceebtan sidoo nacba iyo muslimkan la dhibay iyo waxa lagu hadlayo iyo waxa dood laga dhiganayo muu lacag haysto iyo ma malaa'ig soo raacda iyo dadka rumayn waayay ilaahay wuxuu uga dhigay markaas amar lagu siiyay tasbiixso adigoo ku dheehaya xamdiga alle oo sujuud kaas ba tiriyaaq u ah ama caafimaad u ah laabtaada iyo waxay ku hadlayaan oo dhabkaasaad kaga bogsanaysaa walidaalika baa nabigu calayhi salaatu wasalaam marka arrini qabsato idaa xasabahu amrun badara ila salaa marka dhibi ku dhacdo waxa uu degdegi jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam xagga salaada waxaana ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya مسألة آد لوجو بورين يو قرآن كدول بدن كجسا أرورتي فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود في سورة قاف إلهي وحلي الصبر وحيكوها ضليان وإلهي التصبيح هذه كلها هي إلهي مهد نقيس واغو انت انو بريين اما عدادي صوبحين iyo inta aanay cadaadi dhicin iyo inta gabal ku dhacay habeena
iyo adbaar السجود صلاة دبدود تسبيح ذا بدي با إلهي لي فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وصبح بحمد ربك بالعشي والإبكار في سورة غافر وفي طور واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وصبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وفي سورة الإنسان فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صور كاكلا قدسانا إن صوت المامنين دمان تودي لهي نبي محمد وحفر يا إنو صبره مركا لبادنا وحلا فرا يا إنو قرقار سدو صلاة هي تصبيح صلاة هي تصبيح إنو قرقار سدو تا معناه هدو حويان عديدي كستو قفك بني آدم كي قالوا هدو تصبيح دا بديو وكعافي ماضية هدو تصبيح دا بديو لابتيسو اي عافي ماضيسا وانا الدودي لسيي نبي محمد عليه الصلاة والسلام اللوط المامين يتهي وحاوكو عافي ماضيو بل هو الدودة كربو اوردن لغا قبحو بلا يدو مركي كوغو هبستو إلهي القرآن خوحو تلمامي وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي الله يونس با إلهي القرآن كاكاقور رمية ومركو تلكي كعراضي وحبك مغلي وايان انتو عراضي كتغي يساقو مودا يين الله غبصرين إلهي وحولي سبحانه وتعالى وانو قبرنا دبتنا وأكيد دون طفولي سينو وضا نقانو دونتي دبتنا laga tuuray ama ka dhacay dabeetana badu liqday badda gudaheedii haddana nimiri sii liqay qof badi liqday awal bay badahayd ilaan geed la cuskadaana meelaad waxaad ku badbaadaa jirin iyadoo badu ku liqday haddana hadduu nimiri afka ku geliyo calool nimiri buu galay markaasuu dhawaaqay baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنادى في الظلمات أنت ومفسردي وحاو كل واقع محي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلهي وادون بحق لغو عابدا سبحانك حمك هفنان تادي نزهني دادي يويني دادي إني كنت من الظالمين وحانا كتشراه ما ها إله ظلم هذه ظلم ضيه وأنا ظلم يجيب لي قفك مؤمن كان نبطه يوحي الرميسي إلهي إنه يهي محي ليس بظلام للعبيد وحلالي وحاضي نكون شراينه يهي فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وحلالي وحا مشاكلكم قبصدا واحد جيستين وحكمدوا لقوه رمريين ريتي weliba in badanna inuu rabbi kaa dhaafay wayacfu can kaiir dadka badhna waa loo ururiyaa waxaasoo dhanoo naarta lagaga wada jaraa dadka badhna adduunka lagaga sii jaraa nebiyullaahi yuunus wuxuu ku dhawaaqayaa markaa meeshaan ku jiraiyo dhibta ay haysataa waa waxaan anigu geystay ilaahu dulmi aad adigu i dulmiday maaha ilaahu afcaashaada oo dhiya dhammaanta حما واد كدرتاي سبحانك بولي إلهي سبحانه وتعالى وحو إنوغو جواب يا مركا وحي لغو بدباديي نبي الله يونس إنو يهي محي تصبيح دا إلهي في سورة صاد كتل ماما يهدنا فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون بإلهي فلولا أنه كان من المصبحين haddii la leeyahay baa ilaahay leeyahay markuu dunida joogay ama nabadda qabay ama caafimaadka qabay haddaanu ka mid ahay kuwa tasbiixsada kuwa rabbi u tukadee tasbiixsada haddaanu ka mid ahayn la labitha fii batnihi ilaa yawmi yubcathuun halkaasaan ku ciqaabi lahaa baa ilaahay leeyahay inta laga soo saarayo idan sababu najaati waxa uu ku badbaaday ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ku badbaadiyey waa maxay waa inuu ahaa min almusabbixiin إذن كربدا لغو فايدة أيا كانت كربكو هايستو لباطاها النغطو وجسدية جريهان كو هايستا
ama ha noqoto mid laab ahaan ku haysato nafsiya psychologically problem ku haysta oo aad xamili kari lahayd oo qaadi kari lahaaday waxa lagaga badbaadaa inaad tasbiixdaada badisid bal quraanku wuxuu inoo tilmaamay inuu xiriir ka dhaxeeyo inshiraaxu sadriga qofku inuu farxo laabtiisu ballaadhato inuu rida dareemo iyo tasbiixda in xiriir ka dhaxeeyo ilaahi subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi muxamed wuxuu tilmaamay in laabtiisa loo sharxay alam nashrax laka sadrak nabi muuse waa ku ducaysanayay rabbi shrax lii sadri wayasir lii amri waxlul cuqdata min lisaani ilaahu laabtayda ii waasiciyo ii sharax cidhiidhi hay dareensiin ilaahay nabi muxamed wuxuu tilmaamayaa markaa sidoo laabta ugu sharxoomayso sidaytay wa min waraa'ihina inaga في سورة طه إلهي وحليه فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى با إلهي وحي إلهي إلهي صبر وتصبح سو تكو عبادي سو وانت أنو بريين يا قبلكو انت أنو دعين انت كدحله iyo habeenka gobol ka mid ah iyo daclada maalintii waqtiyada salaadaha iyo cibaadaadka la sameeyo dhan ayadu waa soo hosgelaya intaaba tasbiixsan la yiri maxaad helaysaa markaa lacallaka tarda ba ilaahay yiri kay tarda si aad raalli ahaanshiye u heshid idan bayna arida wa tasbiix bay ayadan isku xidhaysaa iyana qofku hadduu rabo cidhiidhiga nafeed inuu ka baxo warwarku inuu ka dego inuu ka mid yahay tasbiixdu waxa ay ku degto waana wax la faray qofka muslimka fi hayatihi kullaha ama fi yawmihi wa layli intaan cadceedi soo bixin intaan cadceedu dhicin habeenka gobol ka mida maalinta qaybteeda hore maalinta qaybteeda dambe intaba aayadu waa tilmaamaysaa culimada badba waxay yiraahdaan tasbiixaha waxa ugu weyniba waa salaada waayo 7 meelood oo salaada kamid ah la tasbiixsada salaada kamid ah sida ogeed baa ilaahay wuxuu quraanku tilmaamaya fi buyutin adina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal waxay ku fasira yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal ilaahay loogu tukanayo lagu tasbiixsanayo galin horiyo galin dambaba waayo waa shaqada ugu badan ee uu qabto qofka maxay salaada tukanaya waa shaqada ugu badan ee laga rabo dadka masaajida camiraya inay sameeyaan xadiidkii muaawiyah ibn al-hakam nin baa soo galay masaajidka iyadoo la hadla buu ogaa salaada waagii hore hadalkuna uu iska banaana adigoo iskaga jira hadii mid kula hadlo waad iskala hadlaysay dabeetana quraan baa soo degay tilmaamaya inaan hadalku banaanayn kadib niman waxba ogeyn baa soo galay salaadiyo lagu jira midixin dhisay dabeetana alxamdulillah ayuu yiri waa la maagay marka ragii salaada kula jiray baa isha ku wada gubay ama waa loo saabatumay waa loo tilmaamay inaanu waxa kale wax uu sameeyay ahayn thakalatkum ummukum buu yiri marka hooyadiin idinka goblantay maxay shayga gubaysaa dabeetana waa loo sii tilmaamay inaanay saxay salaada markii laga baxay ayuu nabigu yeeray alayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu leeyahay fa wallahi ima dagaalin oo ima waji tubin oo ima maagin qof wax sameeyay igama dhigin waligii ma arag buu leeyahay macallinka fiican nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam intuu yeeray buu wuxuu igu yiri buu yiri inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas warniyahu salaada gudaheeda dadka warkooda wax ay uma suubamaan ee waa maxay inma hiya tasbiih wa takbir wa qiraa'atu al-qur'an bu nabigu yiri salaadu wa tasbiihat iyo takbiirat iyo qur'an la akhriyo bu nabigu yiri alayhi salatu wasalaam sida ogeed salaada waxa kamida Allahu akbar marka tiraahdo tasbiihat baa lagu furtaa subhanaka allahumma bihamdik sawt kama mid aha tasbiihda lagu furto تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وحكى كمدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحكى كمدا صدح جارين لا يراهدو
tasbiixaat iyo takbiiraat iyo wax la mida kuwaasoo dhammi waxay yihiin maxay iftitaaxiyada salaada lagu furto waa nooc ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah salaada marka la rukuucsaye maxaa la yidhahdaa subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdih ama subxaanaka allahuma wabixamdik iyo wax la mid ah marka la sujuudsaye maxaa la yidhaahdaa subxaana rabbiya alaclaa wabixamdih iyo wax la mid ah tasbiixaad la mid ah qur-aanka markaad akhriyayso ee salaada tukanayso haddaad aayaatu tasbiix aayad ka mida soo marto waa la tasbiixsadaa imaamkaagu hadduu qaldamo ama shay qalati uu ka dhaco salaada maxaa la sameeyaa subxaana allah baa la yidhaahdaa haddaanad faatixada aqoon aad iminka islaamtay ama aanad hore u aqoonin maxaa la sameeyaa halkii faatixada tasbiixaad baa lagu bedelaa subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar ayaa lagu tukadaa halkii faatixada ayaa lagu bedelaa waa 7 meelood bay yidhaahdaan culammadu iyo salaada ka mid ah oo 7daba la tasbiixsado waxaan leenahay ma marka dhibtoo quraba tasbiixaadku maya cagsigana waa loo adeegsadaa bini aadamku hadduu nimco helo wuu kibraa nimcada bini aadamku kibir buu ka qaadaa ama tacajub iyo isla weyni dunida maanta aynu ku nool lahay maalmihii la guulaystay aad baa loo faanaa waddan waliba maalintuu madaxnimada qaatay ama xornimo qaatay ama kan qaatay maxaa la sameeyaa isticraad alquwa dowladda iyo dadku waxay xoog lahaayeen baarayd baa la maraa askar baa la mariyaa ciidamo dowladda xooggeeday muujisaa bini aadamku inta badan afraaxda wuxuu ka dhigaa meel uu xooggiisa muujiyo إلهي سبحانه وتعالى وحبر يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إيه ومن ورائه المسلمون مركات قوليستان أما نمعها شان أما براريستان كبر مجره تواضعوا لله إلهي بايدينه ليه إلهي صلوا ليه ساد ردد با إلهي وحوت المام يا شقد وقفي عنا لقبطين يتهي محي تسبيح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا markii hore waxa la tilmaamay markuu maka joogay jabay ee laga xoog batay ee la aqbali waayay ee cidhiidhigu haystay wuxuu sameyn la tasbiixsan la yiri markuu maka ku soo galay isagoo 8,000 oo askari wata oo reer maka isdhiibeen oo meesha oo dhan ka taliyay ee dawladda islaamiga calankeedu ballaadhay ee reerihii iyo qabaa'ilkii ka soo horjeeday wufuud ay bilaabeen reerin loogu yimaado reer walba isagoo odagiisu hor kacayo ayaa ilaahay nabiga la hadlay alayhi salatu wasalaam iyo saxaabadii waxa la leeyay idha jaa nasrullah wal fath hadii ilaahay guushiisu idin timaadiyo furashadiisu oo raayta an-nas yadkhuluna fi diinillahi afwaja wa adaragta dadkoo diinta u soo galaya koox koox awal midmid baa la laa maka qofkii islaamay la tumayay imakaana waa koox koox iyo bulsho hadday daragto dadkoo diinta saa u soo galaya baa ilaahay yiri maxay qabo ma faanfaan baa la yidho kibir markaa oo sheego raganimadiina iyo xooggiina inaa ku meel marteen maya ilaahay wuxuu leeyahay markaana waxaa samaynaysaan fasabbix bixamdi rabbik wastaghfirhu ilaahay subxaanahu wa tacaala u tasbiixso adigoo ku dheehaya mahadnaqiisa weliba ذنوبتيني إلهي دين قوانين إيا قابس كدين تكا قابسينا استغفار كلا كالا يبا إلهي لي